koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryawgeesa dheer ahaa wadaawgeegantaan socota boorsi wiintila waxa socdaa keligay maahaniyo waa badannahay adiga laftaaduna waana raaci kartaa turkigaan u soconnaa turkiga rag badan baa nahay oo daaqsato ah dacwaan ugu soconnaa carabtaa naga gadan jirta ariga 2 sano nagama aysan gadan waxayna ku diidday turkigaad ganacsi la yeelateen arigii meeshiibuu ku gaboobay waxaan rabnaa inuu arigaa magdhowgiisiina siiyo turkigu hadda ka bacdina naga gato intaasaan ugu soconnaa daaqsato badanaanna turkiya hilib erangan wadna kulaha waryaa turkiga hilibka eranka maaba'aamawba waar sacuudigii baa wuxuu duqeeyey xudayda gantaaluu saaka la dhacay nimankii xuutiyiintaha adhigaad ka hadlaysa halkee la marinaya nimayo madaxweynihii dad banaa ee Soomaaliya majilkiitin wuu hadlay wuxuu yiri Soomaaliya wax badan baa u qabsoomay laakiin sida hadda ay ku socoto inay ku sii jirayso u malayn maayo sababtoo wuxuu yiri cidii iga aragti duwan waan caburinayaa oo waan maquuninayaa taasi waxay ka soo horjeedaa heshiiska dawladda Soomaaliya lagu dhisay wadniyo saraakiil baa geedkan joogtay dawladda ka tirsanay lafaaga ku qamaari oo adeer hadii lagu dhex jiro waaba iska sii kuclayn doonaaba warani warsiin haaya aw jawaari bay dhawi fidhiya walaagi gudoomiye baarlamaan haay dhan bay dhawin iska seedan keekan lamadii oo shirin fidhiyan meela ka kafe waraabo hayan waana arantu meelaha ka socota aran ulus waay may aan maleeyay walba madaho geedlan hibilan ibilowlan la bahan inoo afka dhulku lan dara doono dawlad leh aka baha doonto oo ulus yaka aali adeer mansuur roow cid madaxweyne ka dhiganaysaa ma jirto waxba ha noo sheekada ha noo sarbeeb war xasan daahir la soo deemay afkiisu xiran bilaashad u qeyleysiin waar qaybtii labaad ee ciidamadii turkiga ayaa waxay ka soo degeen gadar dewaka xooga jisma astalinahay maalin caday amanuun xamar soo gelinahay waxa la yiri marka waan kula amanuuniya marjiha maalin caday wadin kooda meeshan tan ma ku hashina geedkan ka guulan inday wadiyay war adeer iska aamus sidii baaniyaan xoolo tibtima qalloocnayde war xilwaanadii Hirshabeelle maalmahan waa golaha wasiirada ayaga diidinaaye ma lacag la sii markay ansixiyeen maanta warnimada maanta waxa maqlay wariye idaacad warka aqrinaa oo dhahayo ciidamada jooga galkaayo waxay maanta bilaan howlgallo waa yaabay oo ma jijifeen man war waxba galkacay kama ogid dukaankii faca iska cili wuu xirnaayo shalay ma dib loo furay war adeer jabiskii iyo dadartii iyo aabaygii iyo wixii wal iska deynaa adeer halkaas ka fadhidaane aan marka miirooga ayaan qaadaa dhignaa on cunayma horamadiyaasiin ku reebtay aan hele wali horta waxaad weydiiyay madaxweynaha cusbaa Soomaaliland ma allaala meel ka hadlay lama arag muxuu la aamusan war adeero inta burco iyo ceerig abaad ku maqnayd ayuu hadlay warnimaya gowdhan yaalahan iyo badankeeda uu fidhima war dagaalku meesha uu ka dhacay waa Shabeellada hoose waxaana duqay ciidamo Mareykan annagu inta duqayana soo qabanay guriyada ku dhumeeyay waan naqaan cid soo qabata adigu walba ma ooshiidin bay dhaw joomnay meega amiir oo has dhiibtay haata ma aragna jingidil digi waran waa bala yaabay Shabeellada hoose amiir badan ayadoo maalin walba amiir la soo qabtay amiir la dilaa lagu hayaa war madaxweynihii Hirshabeelle wuxuu yiri amiiradii oo dhan xageena u soo guureen war waa ognahay madaxweyne farmaajo inuu maalin kasta u xigto dagaalkan uu soo aadin war qofkaas sheegada xiran lagu warka uu sheegayo madaxweynaha anaa ka xal siiyay dadkan waa ilaan shaxa wariya madiidana sin hadal oo balajaas baan ka bixinayaa oo balajaas dheh war adeero dad waalan baa tiino oo meesha isugu yimid luu kala kaxaynaya meesha waraa kaalay markii oromadii kula dagaashay miyaad Soomaalinimada qarato adiga Soomaaliland oran jiray laanka jooji laan dambe ma maqli karno Soomaaliland baan